wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland Cabdirashiid Riiraac ayaa si adag uga hadlay xaaladda Korneyl Caaro waxaanu ku eedeeyay inuu yahay dambiile qaran. Wasiir Cabdirashiid Riiraac ayaa madax dhaqameedka Korneyl Caaro ku tilmaamay kuwa colaad hurinaya. Caaro waa dambiile, waa khaayin, waa qaran dumis. dii runta la isu sheegayo sababtu waxa weeyaan de marka hore nin qaran buu ahaayo ciidan ahoo ciidankiisii buu ka baxsaday oo kuwa cadfuray. carabtu waxay tidhaahaa dee munaafiq min xadasa wa kadaba min amina wa khana min amina wa khana waa dee waa calaamaadka munaafiqa. waa la aaminay, ciidan baa loo dhiibtay, sarkaal baa laga dhigay, uu baxay. intaaba waxa ka daran waxa weeyaan anigu runtii waxaan leeyahay Caaro beelaha Somaliland oo dhan uu gacan saaro dadka laay. dad masaakiin iyo odayaal iyo caruur buu xasuuqay, dad meeradoodii joogo xasuuqay, ciidan qaran oo libisan oo qadeynaya buu gaaday oo laayay inamo 20 jir iyo 30 jir ah oo dadkoodii u soo shaqo tigay buu laayay. waxa yaab leh ninka garab siinaya ee le Caare hal la saamaxo. Caare waa dambiile lama saamixi karo in la qisaasana uu ku haagsay jano hadii aanay saas u dhicin. dee waxa weeyaan qof walba sharcigu gacanta ku qaadanayaayo nin walba ninkuu doonu dilaya ciduu doonu iska celinaya. waxaan aad ula yaabanahay madax dhaqameedkan iyo dhaqankan cusub. waxay ahayd ninku markuu dambi galo ee dad laayo madax dhaqameedku wuxuu samayn jiray dee ummadda wax la yeelay buu maslixi jiray oo wixii buu habeyn jiray. laakiin waanu kula soconnaa waxa weeyaan hal la saamaxo. su'aashu waxa weeye haddii la saamaxo xaguu ku noolaanaya? bulshada reer Somaliland oo dhan buu gacan saaray. siduu u noolaanaya, xaguu joogaya? qofka u horeeya waxa lagu kala fadhiyaa ee lagaga maqan yahay Caare baqdin maaha, wax kale maaha. nidaamka dawliga iyo sharciga ayaa lagaga maqan yahay. inamada waxa lagaga samreeyay kumanyaal ayaa ciidda hoosteeda yaala Somaliland u soo dhintay. waxa lagaga samreeyay Somaliland bay maanta kuwa la laayay qaranka ah. adeer waxa lagaga samreeyay waxa weeyaan dee ninkii qaran baa uu shaqaynayay, qaran baa ninkii dambiilaha daba socda. laakiin waa la saamaxayaa iyo hal la saamaxo hadday timaado dee qaran jiri maayo. nin walba ninkiisa halkuu jiro waa yaqaan, halkuu galayna waa ogi. markaa madax dhaqameedka waxaan ugu baaqayaa runtii inay joojiyaan kicintan ay dadkoodii la laayay kicinayaan. dhinaca kale waxa uu xogayaha xisbiga wadani ku eedeeyay inuu xisbiga wadani kala furfurayo ugu dambeyntiina wuxuu fariin u diray madaxweynaha Somaliland. waxaan leeyahay markaa xogayaha ama xogayaha sheegtay wadani Soomaalidu waxay tiraa baqal farda la miratay dhigood bay isboodaa. marka haddii uu xafiiska wadani dee malaa rag dhowr oo siyaasiyiin ku arkay oo xogaye laga dhigay oo capacity-giisiiba muu qiyaasin, waxaanu miisaankeelada uu ku hadlayaa muu eegin. marka dee uu iska jeeraariyey. waxaanu leenahay adeer ku soo dabaal sidaa wax meel laguma gaadhe dee dedebso oo is ururiyo ka daa xusbiga burburinay. xusbigaad burburinaysaa adiga shakhsiyan waxba noqon maysid, laakiin xusbigan wadani ee qaran ee lagu soo tabcay baad burburinaysaa oo rag badan tacab kaga jiro, aniga tacab kaga jiro. marka dee adeer haysmoodin fardaha yaacay ee baqal yaroo iminka soo gashaa tahay cagaa dhigo baan leh. madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilandna waxaan leeyahay madaxweyne saamax iyo Caare baa lala wareegaalaysanaya. anigu waxaan qabaa way ka xumaanaysaa haddii Caare la saamaxo. meel laga saamaxaana ma jirto. qarannimona noqon mayso in ninka gacan mariyey ee caruurta laayay, ee odayaasha laayay, ee dumarka laayay, ee dadka makhaayadaha fadhiya laayay, ee ciidanka qadeynaya laayay dee haddii la saamaxo waxa lagu kala fadhiyo madaxweyne dadku ay dadkooda u aasanayeen oo uga fadhiyeen waxay ahayd arrin qarannimo. taliyuhu dee waa ciidan buu xukumaa. ciidanku hadduu ma garanaysaa dee dhibaato ku timaadana dee way dhibaysaa. nin xanaaqsan buu eka oo ma garanaysaa cadho hadalka u yidhi waxna dee way saxnaan. waa si aan sheegayo qaar dee waa munaafiqiinta khaayimiinta aan sheegayo. qofka haddii la aamino oo ma garanaysaa shaqo loo dhiibo oo meel lagu aamino oo wixii uu khaayimo dee waa calaamatul munaafiqo kaa in la maagaa adeer xaq buu u leeyahay. kuwa kale se waxaan leeyahay ciidamada kale ama sida loo dhigayo aba cadho ha ahaato ama degdeg ha ahaatee way ku jireen hadallo aan runtii munaasib ku ahayn jananku inuu ku hadlo.
waxaana leeyahay Somaliland in laga hadlo weeye oo ma garanaysaa wixii garana dee ma garanaysaa la isaga garaabo. Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamuud Fantastic telefishinka caalamiga ee Sahan magaalada Hargeysa.